marka fanaaniinta waa la isku garaacaya san filaayo marka waxba yara jira adigu nuux badan marka waxaan oran lahaa war fanaaniintu way isjecelin Iskalaaji iyo Maxamed Saciid Biikina waa laba saaxiib ah runtan idin sheegaya marka bulshadeenu dadka yeenan isku diray horta inaga wax isku dirayna mushkilada koowaad السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داودياشيدا qiimaha iyo qadarinta leh oo meel kasta dunka dacaladiisa aad ka joogtaan waa walaalkin oo idin leh habeen wacan maghrib wacan casr wacan xilli kasta idin tahay wacan oo wanaagsan waa hagaag hadii daawada nagu cusubtay waxaan ka codsanayna horta inaad channel ku soo biirto subscribe saarta ka balaalka farta saad mar walba aad noola socoto aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxaan caawaydii wadaa ama aan doonayay inaan idila wadaago ama caawa aan sidaaba فنانكي فنانada oo showgii qarniga ku qabsaday ingiriiska bal hada waa Iskalaaji waxaan doonayay muuqaal inaan dila wadaago muuqaaladiisa kamida hablahana aad ugu amaanayay way mudayin hablaheen markasta la amaano de kulay iyaga laantood dumarka ma bay jirtay ba adduunyadani Soomaa marka way mutaystaan amaanta ay amaan ka badan ba bal hada muuqaalka ay noo baleegaray daawashaha times ayaan idin mahadnaqaya khaasatan always dhaqankeena Soomaalidu wuxuu ku salaysan yahay hablaha ilaahay koriyo la dhaqankeena wuxuu ku salaysan yahay hablaha calaashan guriga hooyo fiican ku nooshahay ubadkeeda iyo gurigeedu ka muuqda ma garatay marka hablaha wanaagsani iyo dumarkeenu waa dhaqankeena waa nolosheena waa adigu waa base ka nolosha ay ka soo bilaamataa waa hooyada ma garatay rag waa maamulka saro laakiin dhaqanka iyo quruxda iyo hidaha iyo akhlaaqdu wanaagsani waa hooyada hooyada ka wanaagsantahay way ka sii ubad wanaagsantahay ka sii guri qurux badan tahay marka ha socota hawsha xafladii dumarka goonida waa noo dhiman tahay tii dhalinyarada dhexe waa noo dhiman tahay xafladu waa noo badnaa continue soo wadaynaa laakiin ala shaqo ka wada tii dumarka khaas aan u dhigay way noo dhiman tahay tii aan dhalinyarada dhexe u dhigana way noo gaar ala shan ruwaayadaha ama habka u dhigayo shooyada uu qaybiyay علشان wuxuu kala qaaday hablo khaas ah mid loo dhigayo dhalinyarada dhexe habka loo xuli doono ma garanayo daadooda in la weydiin doono dhalinyarada dhexana show gaar ah u dhigi doono way soconayaan buu ila dhalinyarada waaweyn odayaasha iyo islaamahana qaar ma loo dhigi doono saas ka wada barka waa continue way soconaysaa hawshu oo ma garanaysaa hay ha socota hawshu bal marka heesta uu meesha ku soo bandhigay horta ay toos u guda galnay bal daawashaba meesha soo isku xidhay inaba caadi ma waa jiq meel la iskala istaaga la waay weel soo camiray meesha halkaas taaganti marka bal ha socoto in fanaan la jeceliyo yahay badaka ka dareemaysa Iskalaaji hey aqtaray daaftiyo warniga tasoodan tirayadeedi sawda dhaxlatoosa ariniga tasoodan tirayadeedi sawda dhaxlatoosa waxaan filayaa heestan oo hees cusub aan hore uma maqal laga yaabo dadonto in heestan qaar kamid ah horeba u maqnay laakiin saan waxaan maqlayay inuu laa heesihii hore iyo heeso cusub waan wada marka heeso cusub baa waday inay tahay baan filayaa maadaama heestan aniga xaggayga ka cusub tahay oo markii ugu horeysay aan maqlay tahay bal hada in yar aan ku siiro soconay bal daawashaha horta ninkan waa nin aad u cod degan heesiisuna wada degan yihiin saad ka war haysan bal hadaba showga aynu ka daba tagno showga hadaba waxa ka soo qayb galay ma hadaba idin sheegaya horta seen ka war haynayba waa dadka tikidhada loo qaybiyay ah bulshada ka soo qayb galaysa fanaanka uu imanaysa showgiisa iyo fanaanin si khaas ah ama si gaar ah uu fanaanku u soo xusho oo u yimaada oo la giijiyo la macaaneeyo showga waa labada horta taageerayaasha meesha ka soo qayb galay aad bay u mahadsanayeen runtii wax dhibaato iyo wax buuqi kama dhicin waa fadhiga looga soo kacay laakiin waxa xog igu soo gaadhay in fanaaniinta meesha ka soo qayb galay ay badnaayeen kadib ay isku yara dhaceen fanaaniinta qaar ay kaba baxeen ba meeshiiba oo isaga kaga tageen fanaaniinta qaarna iyagoo heesihii qaadaya oo heesii meel dhax kaga jira laga damiyo leeyri Iskalaaji mooyo cid kale nagu socon mayso kadib Iskalaaji saad ka war haysan ama anigu shakhsiyankayga ku aqaana ama aan ku arkay ama aan ka sawirtay waa qof aad u degan oo intuu qof degan yahay qof mas'uul yahay
marka inuu fanaaniintii dib u raali geliyay heesii dib u daara dib loogu daaray dib u sii heeseen oo ay fanaandaasi ahayd dhexda laga damiyay heesta iyadoo ku guda jirtay heestii oo qayb kamid ah qaadayba in kamid ah ay u harsan tahay oo laga damiyay waa fanaanada la yiraahdo Hawakin sidoo kale waxa joogtay meesha fanaanada la yiraahdo iyadana King Jaamac oo iyadana runtii hal hees ka qaaday marka fanaanti qaarna way ka tageen qaarna hal xabad hees ay ka qaadeen si kasto ay haataba waxa loo dig iyo damlaha iskalaajimo cid kale lama rabo waa runtii waa ninka waxa la tusay dardar aan caadi ahayn oo runtii dadku jacaylkooda ugu soo bandhigaya staff baaba xitaa ilaalinaya baa la yiri sidii madaxweynayaasha hareeraha lagaga jiray loomaba ogolaynba inta la sanaamaba ka joog ha socoto war ka wada iskalaaji habeenka wuxuu ogaaday inuu yahay fanaanka geyga Soomaalida waana fanaan caana geyga Soomaalida magaciisa maamuus kule hadaba midba meesha taala markay dadkeenu shacabkeenu ay meel isku yimaadaan ama qof u soo baxayaan waa laba shay marna qofka jeclaanshay iskiisoo jecelin bay ugu soo baxaan marna bahal caadifada la soo baxaan waxa jirta fanaaniinta horta in la isku lisamaha waxa dad isku keeni kara ee dad heshiisiin kara ee dad midaysiin kara waa bulshada waa shacabka fanaaniintu way jeceliin laakiin waxa wax kala dilaya waa shacabka waa inaga naftiga shacabka ummadda Soomaaliyeed ba kamid ah maarahan bulshadaas uma kamid ah inaga un ba dadka isku diri karna inaga un ba dadka heshiisiin karna marka in kamid dadkeena markay meel ka soo qayb galayaan in yar kamid ah caadifad ba ku yara jirta بريانا واحد مدة فنانتي عاطفة هان لوجو صير قريب قلي مركا واحد أقول لها فنانتي يان لك بهديلين يان ليسكو ديلين إسكالات عيد كاستافر دقا وقصة كعضي إن كم دنا عاطفة دي وحبي اللي دحيا عيين محمد سعيد بيكي ودوجيدين إستجا معلمه وإستجا حماش سيك عصنيد عاطفة دي وحبي هسود دحيا عيين إسكو دو تشعل إسكالات ستوك دي حمانت كذا قبل عمتها وينجع قبيالد بين كل رقمينا سياسة حمين كل رقمينا من يكون أكسنة ماله مال كستين وده تشوجنا مال كستين كودا نال نهاي مال كستين كودا دقنا مال كستين إنه كلانسيسا هدين كوب بدن نهاي هدين إنه كوب بدنين هدين الدل كي إنه لحين وياهي هدو الدل شيء ياهي مركز طبعا إنك قبيالد يحس إنه مين إنه كويناني مين إنه كواتومي طبعا شان الله يسكو كم وده بركية إن إنه كشقة إنه مال كستين بشود شوك تبع يمال كستي برشة كسر قريب قلي سبع إنك كشقيان إسكسو دوانشيا إسكسو دوينيا dadka ku dhaqan ama dadka ay marka xafladaha ama munaasabadaha ama fanaaniinta ama siyaasiyiinta waxay doonaan baa ahaadaan inay isku soo dhaweeyaan inagu markastaba shacabeen in dhaxdhaxaad ka ahaano iyo xumaanta kooda ka bilaamata waa inaga qabyaalad been ku dhaqmaynaa siyaasad xumeen ku dhaqmaynaa meel ku wanaagsan male meel kasto in wada joogno meel kasto in ku wada noolnahay meel kasto in ku wada dhaqanno meel kasto in kulansiisa hadaynu ku badannahay hadaynu ku badnayn hadaynu dalkii aynu lahayn uu yahay hadii dal shisheeye yahay mar kastaba inaga qabyaalad iyo xiqd iyo xaasidnimo miinaynu ka weynaanin miinaynu ka waatoomin runtii waxaan jeclaan lahaa allah isku keen wada barakeeye in aynu ka shaqeyno meel kastoo bulshadu joogtaba iyo meel kastoo bulshada ka soo qayb galaysaba inay ka shaqeeyaan isku soo dhawaanshiyaha isku soo dhaweynayaan dadka ku dhaqan ama dadka ay marka xafladaha ama munaasabadaha ama fanaaniinta ama siyaasiyiinta waxay doonaan baa ahaadaan inay isku soo dhaweeyaan inagu markastaba shacabeen in dhaxdhaxaad ka ahaano maxamed saciid biike wada ogeedino war been abuur xitaa magaalada loo galo leeyay waa la dilay gaaray waa la weeraray oo in kamid ah ummadii Soomaaliyeed isku sii dirayso marka fanaaniinta waa la wada jecel yahay ummadda Soomaaliyeedna meel ku jirto way wada jeceshahay in yar xun baa ku jirta inta yar xunna waa ummadeennii ya sankaago maxay qulmay walba maxay looma gooyo baa leeyahay waa ummadeennii waa dadkeennii alla inta yar xiqdiga waday xaasnimada wadana kulli xaasnimada cid kale kulma dhex jiraan kulli inagu un binigula dhex jiraan inaguna waa inagii Allah isu keen wada barakeeyo waa inoo kala dambe iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli share kare thank you. Please subscribe channel Kusobir channel ka like tana nagu dhiirigeli
share garee. Thanks. Please subscribe channel kusoo biir channelka, like tana nagu dhiirigeli, share garee.